dowladda Ukraine ayaa ka dalbatay beesha habargidir ciidamo aad u fara badan kadib weeraradii qawnay oo ku qaaday dalka Ruushka. dagaalyahanada beesha habargidir ayaa wacad ku maray inay Ruushka ka saari doonaan waddanka Ukraine halkaas uu ku barakiciyay shacabka reer Ukraine. beeshan habargidir ayaa sanadkii 1993 magaalada Muqdisho kula dagaalantay dowladda Mareykanka oo markaa ku soo duushay dowladdii Soomaaliya oo hogaaminayay Generaal Maxamed Farax Xaydiid. beeshan habargidir ayaa ku caana xasuuqa iyo laynta cadowga markaas ku soo duula dalalka. beeshan habargidir ayaa waxaa ka soo jeeda ciidamo aad u geesiyoon kuwaas oo ka cabsanin dagaalada iyo inay naftooda ku waayaan halisaha. dowladda Ukraine ayaa tilmaantay inay dadka Soomaaliyeed yihiin dad aad u indhadag haasatan ay ka xulatay beesha habargidir oo ah kuwa ay aad iyo aad ula dhacday dagaalada ay ku sameeyeen Mareykanka iyo xulafooyinkii soo weeraray Soomaaliya. beeshan habargidir oo loo dhiibay hubka gantaalada qaradaha iskaga gudba ayaa hadda qorsheynaysa inay weerar ku ekeeyaan dalka Ruushka. beeshan habargidir ay ka dhasheen nahriyada Soomaaliya hore u soo hogaamiyay dagaaladii iyo cadaawihii ku soo duulana ka qayb qaatay kana saaray wadamada ayaa hadda qorsheynaya inay Ukraine ka nadiifiyaan Ruushka ku soo duulay. ciidamada dagaalka galaya ee beesha habargidir ayaa ka soo kala baxay magaalooyinka Gaalkacyo, Cadaado, Dhuusamareeb iyo Xaradheere ayagoona wacad ku maray inay 24 saac dowladda Ruushka ay gacanta ku soo dhigi doonaan ciidamadeeda ku soo duulay waddanka Ukraine. haddaba daawada si sheergaray page-ka Hoon Maxamed Cabdi leeg saaro fadlan lagu soo biir waa aniga oo Hoon Maxamed Cabdi.